carwada ganacsi ee Soomaaliland oo gashay maalintii labaad ayaa bilowday iibinta alaabooyinka kala gedisan ee ay soo bandhigeen shirkadaha dhinaca ganacsiga. carwadan ganacsi oo ay tii ugu ballaarneed ee laga hirgeliyay Soomaaliland ayaa maanta ganacsatada halkaasi ku soo bandhigaya alaabooyinka waxay si rasmi ah u bilaabeen inay ka iibiyaan dadweynaha halkaasi ku soo booqanayay alaabooyinka iyo badeecadaha ay hayaan. waxaana halkaasi booqday dadweyne aad u tiro badan oo halkaasi u tagay in ay ka soo gataan ama iibsadaan alaabooyinka kala duwan ee halkaasi yaalay. dadweynaha ayaa ku mashquulsanaa baayacada iyo eegista alaabooyinkaasi. shirkadaha ganacsiga ka qayb qaadanaya carwadan Soomaaliland ayaa gaadhay ilaa 100 shirkadood isugu jira kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. waxa kale oo halkaasi xusud mudan in shirkadihii halkaasi ku soo bandhigay adeega ay u qabtaan bulshada ay kamid ahayd ururka loo yaqaan Watershed oo isagu ah ururka qareenada Soomaaliland ee u doodaha dadka ayaa waxay halkaasi ku soo bandhigeen qaabka ay ugu adeegaan bulshada. waxaana arrimahaasi nooga waramay garyaqaan Maxamuud Xaaji Cabdiraxmaan isagoo faahfaahin ka bixiyay sida ay ugu adeegayaan bulshada oo sheegay in ururkoodu ay u taagan yihiin sida ay bulshada ugu fidan lahaayeen adeegyada dhinaca sharciga. dadweynahana halkaasi ay ku siinayeen waraaqa ay ku qoran yihiin macluumaadka ururkaasi qareenadu. shirkadaha aad u tiro badan oo kale ayaa ku soo bandhigayay alaabooyinka ay hayaan. waxa kale oo halkaasi indhahaga soo jiidanayay buul weyn oo ay hoos yaalaan waxyaabaha agabka hidaha iyo dhaqanka inoo ah kaasi oo ay soo bandhigeen urur kamid ah ururada ka jira Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca dhaqanka. qalabkan ayaa ahaa mid aad loo xiiseeyay isla markaana loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan dhalinyaradu dibna u xasuustaan dhaqankeena iyo hidaheena. carwadan Soomaaliland ayaa soconaysa 5 maalmood.